Asalaamu calaykum, soo dhawaada saaxiibayaal meel kastaad joogtaan. Waxaan isku daynaa maanta inaan dhowr qodob oo tradingka ku saabsan inaan hoosta ka xariiqno, sidoo kale inaan dhowr trade oo live aan qaadano haddii ay suuragal inoo noqoto aan fursado ka helo suuqa insha Allah daqiiqadaha aan casharka duubayno. Dhowr dhalinyaro ah oo traders ah oo in badan suuqan ku jiray oo suuqa ka trade gareeyay ama lacag real la galay ayaa ila soo xiriiray. Waxay ii sheegeen in ay suuqan ku fashilmeen ama aysan wax faa'iido ah ka gaarin. Runtii dhalinyaradaas hami waa ku jiray, dadaal waa ku jiray inay guul ka gaaraan suuqa way ku jirtay, laakiin markay ii warrameen oo qisadooda iga sheekeeyeen runtii waxaan dareemayaa dhowr qodob oo gaab inay ku jireen. Number 1, horta suuqan marka aad soo galayso marka hore waxaa lagaaga baahan yahay in aad go'aan soo gaadho oo marka hore aaminto, maskaxiyan u aaminto in suuqan laga shaqaysto, hanti fara badan laga tacbado, millionaires iyo billionaires adduunyada ku nool maanta ay guul ka gaareen suuqan dijitaalka ama sarifka lacagaha. Saaxiibayaal, labada lacagoodan maanta isku dayna inaan trade gareyno waa GBP USD iyo Euro USD. Labada lacagood baa badanka anigu trade gareeyaa, iyagaana waqtigayga ugu badan geliyaa markasta iyo analyskayga, iyagaana la socdaa markasta. Marka inta lacago badan isku dawaqan lahayd waxaa kaaga qurux badan inaad laba lacag, hal lacag, saddex lacag ugu badnaan aad focus ka saarto, newskooda iyo fundamental iyo technicalkooda aad la socoto. Marka waxaan isku daynaa hadda GBP USD inaan fursad ka helo. Waxaa u muuqataa mid zone adag jebisay oo ka baxday hadda correction. Marka haddii candlekaas uu ii sameeyo waxaan u qaadanay uptrend. Waxaan isku daynaa natiijadeena waxay inoo muujisay lacagtaas. Waan eegaynaa inaan ku guulaysano inaan ku guuldareysano. Trade-ka waxaan ku galay $500. Waxaan rajaynaynaa faa'iidada aan ka dhaxlo $500. Kole analysis-keena iyo focus-ka aan saarnay waxay noogu muuqdaa suuqan uptrend. Sidoo kale waxay jebisay zone correction oo ay ka baxday candle rejection buu siiyay. Marka waxaan rajaynayaa boqolkiiba 100 anigoo ku kalsoon analysis-kayga iyo aqoonta aan u leeyahay AQ option-ka iyo sarifka inaan ku guulaysan doono insha Allah. Saa arkaysaan lacagtii waxay ahatay saaxiibayaal bay aad qurux badan. Faa'iidadeena oo ka haysanaa $451 oo lacag oo faa'iida one trade. Waad dareemi kartaa sin ugu baahi qabno in suuqan barano. Haddii baa aaminsan tahay in suuqan lacag laga sameyn karo oo lacag fara badan laga sameyn karo oo aad waqti gelin karto, way u fadhidaa marka. Isweydii sababta aad bilaa camal u tahay, sababta aad u niyad jabsan tahay, sababta aadan u dadaalayn, sababta aan suuqan u gelinayn waqti maxay tahay. Haddii baa hubtid in lacag laga sameyn karo, haddii aad og tahay dad lacag ka sameeyay oo aad taqaanid hebel u taqaanid, ajnabi iyo Soomaali, saaxiibkaaga shalay, saaxiibkaaga beri, dhammaantood ay lacag ka sameynayaan, way adiga u fadhidaa. Marka su'aashaas isweydii saaxiib. Hal trade aan qaadanay, lacagtii taaleegna waa ka faa'iidnay. Waa ognahay maanta shaqo la'aanta ka jirta dalkeena hooyo. Waa ogtihiin xataa dadka shaqeeya inta ay ku shaqeeyaan $400 iyo $500 normal baa loo badan yahay kiiba shaqo hela. Kuwa kalena waa kuwa aan bilaa camal oo xaafadahooda iska jooga. Marka in 1 minute baan hal trade galay, $451 oo faa'iidana waa ka dhaxlay. Imagine marka intee ayaad suuqan haddii aad waqti badan geliso oo aad xoogaaga iyo cilmigaaga iyo aqoontaada soo jeedkaaga iyo maskaxdaada aad focus-ka ku saarto inaad trading-ka guul ka gaadho, waqti lacag intee laga ka sameyn kartaa saaxiibayaal. Marka meeshaan lacag baa taala, mustaqbal baa iyo horumar baa yaala. Dadaal la muujiyaan idin leeyahay dhammaantiina. Marka dhalinyarada aan idin sheegay oo iga warramay qisadooda ina sheegay inay suuqa ku khasaaraan dhowr caqabadood haystay runtii. Number 1, markii aad trading u soo baxaysid oo aad leedahay trader baan noqonayaa oo suuqan sarifka lacagaha gelaya, lacag baan ka sameynaya.
waa inaad ku soo xisaabtantaa in aan lacag dhayal meeshaan oo leen ay kaaga baahan tahay waxbarasho. maaragta saaxiib lacagtii markay zoonkii jabsatay dhaqaaq fiican oo bay ayay samaysay, correction ay gashay, si fiican ay suuqa ugu dhaqaaqay bay. markastana waa inaad jihada suuqa la socotaa. suuqaan uptrend u ahaa keliya waa inaad bay u gashaa, si looma geli karno suuq downtrend. sidoo kale lacagtan euro USD iyadana uptrend waaye, waa inaan u galaa keliya bay. keliya waxaan ka radsanaynaa fursad bay ah, fursad sell ah. xitaa haddaa aragto oo zone suuqi soo celiyo rejection uu kuu muujiyo lama geli karo, sababtoo ah high probability ma ahan tradekaasi. laakiin haddii suuqu uptrend yahay oo zone kuu jabsado, candle confirmation kuu samaysmo, candleka markaas aad gelaysaa oo rejection fiican kuu sameeyo, ku faataxayso waxa weeye cilmigaagana ku kalsoono, aqoontaadana ku kalsoono, aamin. markaad wax barato waqti badan aqoon geliso, xirfadan aad u dadaasho, waxa weeye soo jeed badan aad samayso, wax badan aad akhrido, casharo badan aad daawato, waxa weeye runtii in allaha laa yudiicu ajra man axsana camala buu ilaahay subxaana wa tacaala. qofku haddii uu dadaalo uu waqti geliyo ilaahayna waa taageeraya. markaas waxaa laga rabaa marka inaad cilmigii barataan saaxiibayaal. lacag meeshaan iska taaltaala oo la iska helaya markaba si fudud lagu qaadanayo ma jirto. lacagtan waxay kaaga baahan tahay inaad barato. haddii nasiib suuqan lacag lagaga helayana dadkiina ka horreeya kaga heli lahaa, ama saaxiibada aad taqaanid oo ku wada khasaaray baa nasiib lacag kaga heli lahaa iyo adiga. waxay nooga baahan yahay marka saaxiibayaal dadaal iyo barasho. markaan baranno runtii waxa weeye saaxiibayaal waa u aayanaa, waana nolol adigana horumar ka samayn kartid, qoyskaagana horumar uga samayn kartid, noloshaada ka horumarin kartid, wax walba aad ka qabsan kartid runtii. laakiin caqabaadka ka horeeya waa inaad u diyaar garowdaa si aad u jeer lahayd. haddii aan caqabaadkaas ku fashilantid ama aad u istaagtid kuma guuleysanaysid. waxyaalaha ugu waaweyn oo tradingka uu u baahan yahay saaxiibayaal marka aad cilmigii la timaadid waa mindsetka, in maskaxdaadu degan tahay, inaadan degdeg badnayn, inaadan fududayn, inaadan suuqan khasab lacag kaaga raadinin. ruleski aad baratay iyo shuruucdii aad baratay iyo cilmigii aad baratay inaad suuqa ku dabaqdid, oo markaad ruleskaagii oo dhammaystiran aad aragto inaad suuqi gashin markaa lacag waa ka samayn kartaa. weli trade ma arko, weli waxaan arkaa lacagtan euro USD inay correction ka baxday, hadeerna ay correction yar ku jirto. zonekaas naga horeeya markii ay jabsato oo aan rejection ka helo markaas ayaan geli karnaa. GBP USD sidoo kale iyadana fursadaheeda waa sugaynaa ilaa hadda ishaan ku haynaa. laakiin waa ognahay meeshaan u soconno, waan ognahay tradeeka qaadanayna nooca uu yahay, waan ognahay suuqa sal iyo bay waxaan u galayno. marka aad taqaanid meesha u socotid waa gaaraysaa, ama gaabi ama dheeray. haddii aaba garanaysid meesha u socotid waa masti, waa khasab inaad gaartid. haddii baa og tahay inaad meesha u socotid garanaysid saaxiibayaal. marka saaxiibayaal weli waxaan u jeednaa euro USD correction bay ka baxday, correction kale gashay. haddii ay zoneka jabsato wisho waa gelinaa tradeka, waana iska hubinaynaa, rejectionkaan hubinaynaa, dhaqdhaqaaqa dhan baan hubinaynaa. wax walba inaad iska eegto very important waaye. waxyaalaha kale oo very importantiga oo saaxiibadana aan inta badan kula taliyo walaalaha Soomaaliyeed ee dhalinyarada ay la midka ahi waa inay patience yeeshaan, inay wax sugaan. inaad sugi karto 1 saac 2 saac inaad hal signal qaadato ma aha. suuqa haddii uu qurux badnayn ama suuqa hadduusan ku caawinaynin inaad waxa weeye aad khasabto ma aha. no, haddii suuqa uu fursad aadan waxa weeye markaa ku arkin inaad khasabto tiraahdo masti weeye waa inaan ka helaa ma aha. runtii waa inaad okay lacagtan absolutely yes okay lacagtan waxaan u qaadanay saaxiibayaal baysaad wada jeedaan. sababtaan u qaatay waxa weeye correction yar ay lacagta ku jirtay way ka baxday correctionkii, waxaana kaga baxday candle xoog leh oo bay ah ama candle cagaar ah oo waxa weeye bullish ah ayay kaga baxday. waa qaatay, waxaan u qaatay tradekayga inuu bay yahay. waa ku kalsoonahay 95% in aan waxa weeye tradekan in faa'iido ka samayn karno. ma oranayo waxa weeye faa'iido kama heli karno, faa'iidaan ka heli karnaa 100% ma oranayo oo wax khasaari kartaa. laakiin waa inuu signalka qaadanaysid high probability 95-98% waa inuu guul u ku dhalin karaa. saa ujeeda saaxiibayaal tradeka labaada qaadanana waa ku guuleysanay alxamdulillah.
waxaan rajaynaynaa tradeada kale aan qaadan doono ama aan suuqa ka heli doonana inaan waxa weeye ku guuleysan doono. inta badan waxaan kula taliyaa walaalaha Soomaaliyeed dhalinyarada bilaa camalka ah kuwa Soomaaliya jooga iyo kuwa qurbaha joogaba inay suuqaan runtii waqti geliyaan saaxiibayaal. aniga idin la midkaa suuqaan wax badan aan kusoo jabay, wax badan aan kusoo rafaaday, misana waan aakhirkii waa ka guuleystay alxamdulilah. idinkana saas idin rajaynaya saaxiibayaal inaydin isdhiibin, inaad waxa weeye suuqa markaad aqoontiisa barataan, dulqaad yeelataan, inaad patience yeelataan, inaad risk management iyo money managementiga aad iyo aad uga taxadartaan. sababta waxaan aad suuqa la gelaysaa waa real money waaye, lacag dhab ah waaye, lacag fake maaha waxa aad suuqa la gelaysaa, waa lacag xaqiiqa ah waaye. marka inaad patience yeelataan, sugtaan, lacagtaada aadan risk iska gelinina, in aad xitaa haddii aad $100 haddii aad suuqa la soo gasho, $100 keliya haddaad suuqa la soo gasho oo halkii trade aad waxa weeye $5 ku gasho, $5 haddaad halkii trade ku gasho, maalintii haddii aad 5 signal qaadato, 5 4 ku dhufo $4 in haddii halkii trade faa'iidaysid waa $20. $20 maalintii haddaad faa'iido bishii ku dhufo waa $600 xisaab ku dhow ama ka badan. $600 saaxiib bishii adoo Soomaaliya jooga waxa weeye kuwa badan oo waxa weeye daalaya oo subaxdii jarmaadaya oo shaqaale ah baa ka income fiican tahay. waxa ugu wanaagsan ee aan suuqan ku doortayna runtii waxa weeye qofka bini aadanka ahi wuxuu jecel yahay xorriyadda. adduunkana gumaysi waxa ka haray baa la yidhi in qof shaqaale loo noqdo. inaad qof shaqaale u noqoto waa gumaysi ka haray, gumaysiga casriga ah. suuqan waa ii jabsaday, waxaan arkaa candle body fiican la inuu ii jabsaday, waa ka faa'iidaysanayna insha Allah. bay ayaanu qaadanaynaa rejection fiican haddaan ka helo signalkaas. candleka hadda socda haddaan rejection qurux badan ka helo, maybe inuu up ii noqdo insha Allah tacaala. rejection fiican baan ka sugaya ilaa hadda. rejection fiican ma arko, laakiin haddaan ka helo I will take yes isagana saaxiib signalkeeni labaad weeye, signalkeeni saddexaad weeye, ama tradekeeni saddexaad inuu gallo sessionkan. marka waa eegaynaa waxa ku dambeeya, waa isla eegi doonaa. marka saaxiibayaal waxa ugu xun adduunka oo laisku gumaysta in qof shaqaale la noqdo. xor baa tahay, meesha doonta aadi kartaa, safarka doonta geli kartaa, xilliga doonta trade garin kartaa. waxa weeye lacag غير معقولة waa shaqayn kartaa haddaad suuqan barato. marka ka faa'iidaysta dhammaantiina waqti geliya. ana inta badan dhalinyarada waa kula taliyaa. tradekeena haye natiijadiisii waxay noqotay tradeekii saddexaad inaan maanta ku wada guuleysano saaxiibayaal idinkoo arkaya. marka this is not game saaxiib cali, this is not game, this is a knowledge. waa aqoon saaxiib, waxaan game maaha, khamaar maaha, kasiino maaha saaxiib. waa aqoon, waa knowledge saaxiib, waa shaqo, xirfad waa. haddii aad xirfaddan baratid waa shaqaysanaysaa saaxiib. aniga kaa ballan qaada uma faanayo saaxiibaday, laakiin waxaan ku dhiirigelinayaa, waan ku guubaabinaya, idinku guubaabinayaa inaad fursaddan igala faa'iidaysataan runtii. maanta dhan asaa u shaqayn kartaa. waxyaalaha kale oo very importantiga ah waxa waaye inaad qorshe leedahay. yes still waxaan arkaa suuqu inuu ii jabsaday soonkeygii, waxaan arkaa candleku inuu rejection ii sameeyey, waxaan arkaa waxa weeye in uu suuqayga trendigiisu uu yahay uptrend. ruleskaygii oo dhan haddii la waafaqo waayo aan suuqa uga istaagaya, waa gelaya natiijadana waa sugaya anigoo weliba ku kalsoon waxa weeye xirfadayda. haddii aad qorshe la imaatid oo aad garanaysid maalintii inta trade aad gelaysid, garanaysid lacagta aad ku gelaysid, inta aad lacag aad risk garanaysid maalintii inta lacag suuqan ka rabtid, oo guuleysanaysaa. haddii aad aqoontii la timaadid, risk management la timaadid, qorshe la timaadid iyo plan aad la timaadid, patience iyo sugitaan inaad la timaadid, dulqaad la timaadid, suuqan waa ka guuleysanaysaa. laakiin haddii aad xamaasad iyo waxa weeye in aad suuqii khasabto, meel aan trendigii aad ka hor timaado, meel aan waxa weeye aan zone ahayn aad zone ka dhigato, aad suuqii khasabto istiraad halkan ama zone u eg tahay, no ku fashilmaysaa saaxiibayaal. tradekiisa afraad maybe inaan ku guuleysanay
for trade baan galay 4 trade bas saaxiibayaal ku guuleysanay indhihiina idin macalina itusoo taabsi waaye saaxiibayaal ku soo biiri kartaa Telegram-keena hoos ku yaala kaana app baan u qaadanaya laba trade baan ka galay maybe trade saddexaad ka galo kii afraadna waa ka galaya sababtoo ku kalsoonahay signalkan aad iyo aad boqolkiiba boqol waa ku kalsoonahay 4 trade baan ka qaatay waxaan hubaa 4 trade insha Allah inaan ku guuleysanayo haddii Ilaahay yiraahdo wax walbina waxa weeye Ilaahay gacantiisa ku jiraan laakiin I believe waxaan ku galay lacag halkii trade $500 baan ku galay $2,000 baan ku galay halkii trade ka $2,000 baan ku galay waxaan rajaynayaa lacag kun iyo dheeraad inaan ka faa'iido doono haddii Ilaahay yiraahdo waan isla arki doonaa indhihina idin macalin noqon doona insha Allah marka saaxiibayaal Telegram-keena hoos video hoostiisa yaala ku soo biira lambarkayga qofkii raba inuu waxa weeye su'aalo gaar ah weydiiyo taleefankayga WhatsApp kala soo xiriiri karaa iyo si saaxiib $1,353 in one trade amazing saaxiib runtii wallahi tan aad iyo aad cajiib tahay marka xirfadaada ku kalsoon tahay saaxiib waqti badan wax barashada gelisid noocaas ayaa trading-ka aad ugu guuleysanaysaa marka saaxiibayaal ku soo biira Telegram-keena insha Allah trade saddexaad fursad haddaan sii aragno waa geli karnaa haddii la yiraahdo fursad kale haddaan sii aragno dheeraada waa geli karnaa okay kan aan bay u qaadanaya way kan aan bay u qaadanaya trade-kaas ay noogu dambeeyay saaxiibayaal insha Allah 5 trade baan isla qaadanay wax ka yar 20 daqiiqo marka 5 trade baa aragnay inaan ku guuleysanay maybe trade labaad baa ka galay trade saddexaad baa ka galay isla eegi doonaa kan insha Allah saaxiibayaal waxaan oo dhan waxaan idin tusayda ku soo duubaya real trading-ka ama live trading-ka waxaan idin ku soo duubaya waaye itusoo taabsiinay waxaan noqdaan in saaxiibadu ay arkaan suuqan inuusan nasiib ahayn uu yahay aqoon marka saaxiibayaal ku soo biira Telegram-keena waxa weeye qofkii su'aal gaar ah raba WhatsApp-ka lambarka hoos yaala description-ka hagala soo xiriiro si free aan ku caawinayo insha Allah saaxiibada walaalaha Soomaaliyeed intii aan ka gaaro oo aan awoodo haddii la yiraahdo marka saaxiibayaal soo dhawaada dhammaantiin waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol guul baa inoo ballana dadaal baa inoo ballana qof walba inuu waxa guntiga dhiisha iskaga dhigo oo waqti geliyo trading-ka waxa kan haddii aad maalin kasta camal ka dhigato as a game inaad maalin kasta ku samayso more practice you will done saaxiib aniga ka huwa aniga taa ku damaanad qaaday waxa kaliya ka guuleysanaysid waa dadaalkaagana Ilaahay diyaacay maayo marka guuleysta dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa mustaqbal wanaagsan waxaan idin rajaynayaa nolol wanaagsan trade-kan isagana waa aragnaa saaxiibayaal markaan saddexda joor ka galay ayaan idinku lahaa saaxiib I believe inuu signalkani aan guul ka gaarayo waa arkaysaan saaxiibayaal kii hore $1,300 ka faa'iiday kana $902 ka faa'iiday afartii trade horena min $450 ka faa'iiday marka saaxiibayaal this is what waxa weeye happen marka aad wax barato oo aad forex aad iyo aad ugu dadaasho marka 2019 bilowgeeda ayaan soo bilaabay aad iyo aad aan waxa weeye rafaad badan laakiin akhirka ku guuleystay waa mahadsantihiin saaxiibayaal assalaamu calaykum